Sharmaarke Axmed Maxamed Geela Dacar gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaadhay caasimadda labaad ee Somaliland taasoo ay ka bilaabeen tirikoobka madax taabashada shaqaalaha dawladda ee guud ahaanba gobolkan Awdal iyadoo munaasabadaasina ay ka qabsoontay xafiiska wasaaradda waxbarashada tacliinta sare iyo sayniska gobolka Awdal ayaa munaasabadaasi waxa goobjoog ahaa shaqaale weynaha kala duwan ee wasaaradaha ka howlgala guud ahaanba gobolka Awdal hadalla kala duwan oo madashaasi laga soo jeediyay ayaa waxa halka ka hadlay barasaabka gobolka Awdal iyo gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda maanta farxad bay noo tahay in hay'adda shaqaalaha dawladda iyo shaqaalaheedii oo wada socda ay maanta gobolka Awdal ka bilaabeen wajigii labaad ee diiwaangelinta shaqaalaha dawladda mashruucaas hawshaas oo ah hawl aad u salbalaaran waxyaabo fara badan oo dalkan iyo qarankan khayr u lana dabada ku wadata oo kala duwan shaqo adag baa runtii inoo taala guud ahaan madaxda gobolka madaxda hay'adda shaqaalaha iyo guud ahaan shaqaalahaba cidna hay'adda shaqaaluhu sidii dhowr jeer aan ugu celcelinay hay'adda shaqaaluhu cidna shaqadeeda ka erimayso cidna laguma soo duulayo waa kormeer qiimo leh kaasoo sidii ku saabsanaana ay noo sheegeen gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyuhu ku mahadsan waa tayeyntii shaqaalaha tayeynta shaqaaluhuna waa arrin qaranka waxtar u ah haddii shaqaale tayeysan la helo waxay qabsan karayaan shaqaaluhu howlihii ay qaranka u hayeen gabagabadii waxaa si rasmi ah u daahfuray isla mar ahaantaana shaaciyey in si rasmi ah maanta looga bilaabay tirikoobka madax taabashada shaqaalaha dawladda gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geele sida aynu xusnay saaka waxa halkan gobolka Awdal ka furmaya mashruucii iyo hawlqabadkii ballaarnaa ee dib u habaynta shaqaalaha dawladda ma aha macnaheedu la dagaalanka caaglaha kaliya waa dib u habaynta shaqaalaha dawladda inuu habaynayna dib baynu u hagaajinaynaa si aynu u ogaano baahiyahooga halkeenu ka kobcinaa maqalab baa ka maqan maqorshaa ka maqan tababar baa ka maqan maxoolaa ka maqan xirfad baa ka maqan maxaynu u qabanaa shaqaaleena si ay u gutaan waajibaadkooda qaran ee qarankan ka saaran hawshan waxay isugu jirtaa tirin iyo tayin waynu tirinaynaa markaynu tirinana xogtii aynu soo helay baynu ka tayinaynaa Soomaalidu waxay tiraahdaa war la heliyaaba tale la hel wardoon baan nahay si taladii hawshaasi ka qabsoomaysay oo hagaagto dadka wixii macquul waynu u hagaajinaa magacdooda waynu habaynaynaa dib u habayn baa lagu sameyn doonaa darajooyinkooda dib loo eegaya darajadan aad qaadatay xaq ma u lahayd mise inaan baa ka lahaa walaalkay darajadan hooseed ku qaadato arma waxaad lahayd mid sare inaad ku qaadato qaar baa si ku qaata oo shahaadado badan haysto mudan in kor loo qaado qaar baa ku qaata xirfad iyo waaya aragnimo iyo aqoon mid ay ku gaadheenaanay jirin oo u baahan inuu dib u celino hawshani waa dib u habaynta shaqaalaha dawladda markaynu dib u habaynana horumar waxa ay higsanayaan oo dhan bayn gaarsiin doonaa markaas qarankeena iyaguna horumar gaarsiin doonaan bini'aadanka guusha ay jecel yihiin waxa gaarsiiya dadkooga dadkii baynu habaysanayna si qarankan u guuleysto dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin si kastaba ahaatee gudoomiye Sharmaarke iyo mas'uuliyiinta hay'adda ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku howlanaa sidii ay u dhameystiri lahaayeen tirikoobka shaqaalaha dawladda ee guud ahaanba ka howlgala geeyiga Somaliland Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV gobolada galbeedka Somaliland